ربنا صعد عمر اللي الحمد لله إلى ما هذا يسكن قال لي يرد خاطر تسومالية ويد داري إلا حلق ما ينفلسن دكتور توني نواني ما تقليها إلهي عافية وسود عيا. بسم الله الرحمن الرحيم. maantay oo ay taariikhdu tahay 27 bisha 7 2019 maalin sabti ah istaalka Irdimeyli Specialist Hospital waxaan qalin ku sameynay abwaan Amin Sahane Hara oo loo yaqaano abwaan Diiran waxa jiray qalinka noociisa wuxuu ahaa virulent orchitis ama baska galay baharka xaniinta marka qalinka hadda sameynay lagu guulaysa maal badan baa ku jirta xaniyaha gudahooda marka waa laga bixiyay qanaan waxa jiray maxaa la yiraahdaa qanda saa'ida WBC waxa dhan hay ESR hay waxna waa xasanaan marka alxamdulillah hadda lagu guulaysa waa ka samaha karin hadda waa halaya waa idin hal kara waa islaami kara ninka la fikiray abwaana qalinka lagu sameeyay hadda maxaa dareemaysaa qalinka waxa ka soo wartay markii lagu sameeyay 15 daqiiqo maxaa dareemaysaa hadda aad baan uga mahadcelinayaa dhakhaatiirta Turkishka iyo kuwa Soomaalida oo isugu kaytay wada kala maqnay maanta dhakhtarka ku qalay waa Suuriyaan Turtoni Allah Turtoni isbitaalka maxaa jira istaalka Irdimeyli Hospital Irdimeyli Hospital Turkiga istaalka dhistay Irdimeyli Hospital dhakhtarka ku qalay waa Suuriyaan anaga Soomaaliya ku caawineen aniga saacido Dr. Maxamed iyo Aadan marka waxaan leeyahay daawadayaasha fiican daawada in ku danguud bayna haynay una soo duceeya in abwaanka Ilaahay caafiyo oo Ilaahay meesha ka kiciyo inta jiran Ilaahay caafiyo aad baan idin salaamaya saaxiibaday waxaan u bixi saad dambe inaan shaqada bilaabi doono hadii la yiraahdo insha Allah marka waan waxa weeye danguud iyo dawladnimo hadaan u dhimanno sharaf baan ku dhimanay la socdo Soomaali meel joogto waa walaalo marka waan salaamaya shan daqiiqo lagu qalay dhakhtarka qalay abwaan Diirane waa kana waa Dr. Tony waa Suuriyaan Tony ka sha Allah marka qalinka dhakhtarka sameeyay saddexdana caawiyaal baan ahayn marka anigu waa Saad Cabdullah ninkan waa Aadan ninkan waa Turxaan marka afartana qalinka sameeynay marka qalinkii waa lagu guuleysay alxamdulillah daqiiqada yar ka hor xaaladiisu ma fiicna si mukoon aha hadda waa kana waa hadlaya waa faraxsan yahay waxa uu dhihi karaa marka duco u baahan yahay abwaanka inaad soo ducaysiin waxa ugu fiican qof lagu bini aadamka lagu caawin karo waa duco in Ilaahay caafiyo oo sidiisa ku soo marka waxaan rajaynaynaa insha Allah few days ka bacdi inuu caadi u socon doono shaqadiisana uu bilaabi doono abwaana ku soo dhawaadigana hay ma sha Allah waxay qalay Dr. Tony oo Siriyana Tony baa la yiraahdaa waa qowl within 3 minutes buu qalay uu ku guuleystay ma sha Allah marka ogaad dalka ay joogaan khaatir sidaas Ilaahay ma wax la yimriyay toddoba iyo toban beri baan yaan marba kan socdaa mar liita alxamdulillah ilaa ma hada iska dhalinyarada khaatirta Soomaaliyeed way dadaalay ilaa xalay ma inafriisan Dr. Tony nawani ma tagleeya insha Allah ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay isoo duceeya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Hagaji